islugeed isku xidhaya xaafadda Balaasa iyo xaafadda Oktoobar oo ah eriyada ceelka uu ku yaalo Biniin iyo Bahal bridge-kaas waxa maalgeliyay Xaaji Muuse Xaaji Cabdi Ducaale ilaahay khayr ha siiyo ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaro khayrka mid horena oo ku yaala caqaadana way isaga iyaga reer Xaaji Cabdi maalgeliyay bridge-ka dheerkiisu waxa weeyaan 515 inta dooxa waa konton gudihiisa hareeruhuna waa xagga Oktoobarna waa 30 xagga kalena waa 35 bridge-kaas waa bridge lugeed oo bridge lugeed weeyaan ma aha bridge gaadiid ilaahay baan u mahad celinaynaa awalan inagu goobtan inagu kulmiyay inagoo nabad qabna ee inoo suuro geliyay amniga aynu halkaa isugu nimi ilaahay baan ugu shukr celinaynaa waxa kale oo mahad inoo ah inaan maanta dhagax dhigayno bridge lugeed ka laga warbixiyay injineerku ka warbixiyay kaas oo aan rajaynayno inuu isu bedeli doono mustaqbalka aan fogeyn bridge weyn oo baabuur iyo gaadiid iyo wax walba ay noo maraan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida ballaadhan ee dawladdu iyo shacabka iyo xaafaduhu uga soo qayb galeen aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa waxa kale oo aan isagana u mahad celinaynaa Muuse Xaaji Cabdi Ducaale oo isu xilqaamay inuu bridge uga sameeyo ummadda reer Somaliland labada xaafadood oo aad u kala go'naa oo tog dheer dhex maro oo aan isu talaabi jirin badina laga dhex shuftayn jiray oo isu xilqaamay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu uga baryaynaa miisaanka xasanaadka inuu ilaahay ugu daro idinkan xildhibaan Muuse awalan ilaahay baa mahad iska leh waa u mahadnaqaynaa ilaahay marka labaadna xildhibaanka waa u mahadnaqaynaa reer Burcana waxa leenahay xildhibaankaasi biriishka maanta uu inoo dhagax dhigaya maaha kiisii koowaad wuxuu leeyahay ku dayasho xildhibaanku leeyahay xildhibaanka meeshan horta goobtan uu ku habooyay maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala qadaray biriishkan cabirkiisu waa 2 mitir balaarka marka loo eego sidaa dherarkana wuxuu noqonayaa 115 mitir buu noqonayaa waxaanu isku xidhayaa labada xaafadood ee had iyo jeer u ciilana ee kala go'na ee masaafada ka soo wareegayaan aynu garanayno ee Balaasa iyo Oktoobar xildhibaanka hadaan u soo noqdo xildhibaanku wuxuu dhisay tanuun maahe hore wuxuu u dhisay 2012 wuxuu dhisay buundadii hore aynu garanayno isaga dhisay Xaaji Cabdi marka labaad wuxuu dhisay xanaanadii halka la oran jiray iyana Balaasa ku taala imka gabagabada ah xildhibaankaasi wuxuu leeyahay ku dayasho waa u ducaynaynaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan u baraynaa in miisaanka xasanaadka ilaahay ugu daro waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay baynu u mahadnaqaynaa mar labaadkana waxaan halkan uga mahad celinaynaa xildhibaanka guurtida Xaaji Muuse Xaaji Cabdi baynu halkan uga mahad celinaynaa oo runtii bridge-ka gabi ahaantiisaba maalgeliyay waxa kale oo mahad celinaynaa shirkadda Hirad oo iyana bridge-yada Burco oo dhan wada samaysay kii Chinese-ka mooye inta kale ka sokaysaba Hirad baa samaysay iyagana aad iyo aad baynu uga mahad celinaynaa Xaaji Muuse sidaa la sheegay buundada hore ee Burco dhexdeeda laga sameeyay isaga iyo family-giisa sameeyay xanaanada Balaasa laga dhisay wali marka qabiyada 15 bulood buu siiyay iyadoo ognahay magaalada Burco xaafadda Balaasa inay tahay meesha ugu qaalisan buloodkeedu aan cidiba goyn karayn ayuu 15 bulood dan guud siiyay ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu miisaanka xasanaadka ugu daro dadka reer Burco iyo kuwa qurba jooga iyo kuwa haysta waxaan leenahay ka soo qayb qaato horumarinta gobolka waxaan leenahay Xaaji Muuse ilaahay miisaanka xasanaadka kugu saaro cimrigaaga ilaahay kugu dheereeyo caafimaad ilaahay kugu siiyo adiga iyo ubadkaaga iyo ehelkaaga iyo familkaagaba waxaan kugu ducaynaynaa cimri dheer iyo cibaado suuban iyo caafimaad taama waxaan kaloo mahad celinayaa shirkadda Hirad oo runtii sida hore loo tilmaamay ka tilmaaman ama dheer degmooyinka kale ama gobolada kale Faarax Xuseen oo runtii injineer aad iyo aad khabiir u ah aqoonna u leh biriishyada iyo wadooyinka intaba waxaan leenahay isaguna aad iyo aad u mahadsan yahay waxaan rajaynayaa oo aad ugu faraxsanahay maanta oo taariikhdu tahay 24 bisha inaan biriishka dhagax dhigno bulshada
labada xaafadood iyo degmada Burcaba insha Allah tacaala waxaan rajeynayaa inay ilaashan doonaan oo dadku waxa danta guud ma ilaaliyaan laakiin danta gaar ah way ilaashadaan laakiin waxaan idin sheegaynaa danta guud ayaa danta gaar lagu gaaraa haddii danta guud aan wada ilaashano oo degmadeena golaheena deegaanka ee cusub ee maamulka cusub iyo golaha deegaanka aynu maanta la shaqeyno isgarab taagno cashuurta bixino wada wanaagsan baynu helaynaa nadaafad baynu helaynaa baahiyaadka asaasiga ah baynu helaynaa waxay ku xidhan tahay waxa aynu hayno inaan wax ka bixino inta uu socdo amnigeeda iyo nadaafadeeda iyo ka warhaynteeda waxa dawladda hoose la wareegi doonta haddii Ilaahay ka dhigo reer Togdheer iyo dadka muxsiniinta ahba inay ku daydaan Xaaji Muuse dad badan oo lacag fara badan haysta ayaa jira maalin ay uga baahan weynahay ayaa jirta maanta oo maalinta maxay tahay qofka keligii meel cidla inta 3 mitir la geliyo lagaga tagi doono amalkiisa kaliya ay raaci doonaan war waxa leenahay waxa baxsataan aakhiradu horumarsanaysaan adduunyaa mazracatul aakhira bi rasuulka sallallahu alayhi wasallam adduunku waa beertii aakhira weeye qof walbana wuxuu ku beerta ayuu aakhira ka guran doonaa marka waxa leenahay ha lagu daydo shirkadda dahabshiil ha lagu daydo Xaaji Muuse ha lagu daydo shirkadaha kalena waxaan ugu baaqaynaa war wax dan guud ah oo dadku wada leeyahay inaad ka shaqeysaan oo aad u samaysaan oo muuqda